sida dhul da'iyo calayo sida dhul da'iyo dhibic xurtiban dhaxa kugu farxay calayo waliga hadhici calayo hadhici. waxaa magaalada Melbourne caawa lagu soo dhaweeyay fanaanada caanka ah Ikraan Maxamed Caraale oo kamid ah fanaaniinta Soomaalida ku dhaqan wadanka Ingiriiska. Ikraan waxaa casuumay ururka jaaliyadda Somaliland ee wadankan Australia si ay uga qayb gasho munaasabada 18 May ee Somaliland bishan oo May oo dhan ay ugu dabaaldegaan maalintii gooniisutaaga Somaliland. ugu horeyn waa kan afayeenka ururka aska Cabdiraxiin Cabdilaahi Xuseen Gaboose. waxaan ku suganahay magaalada Melbourne airportka Melbourne annagoo ku soo dhaweynaynaa fanaanadeena qaaliga ah ee nooga timi ariga Ingiriiska Ikraan Maxamed Caraale. waxaanu ku leenahay marka hore walaal soo dhawow. halkan waxaa taagan jaaliyadii reer Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo nala soo dhaweynaysay fanaanadeena. halkan waxaan ka bilaabayaa marka hore gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee aska Xamse Maxamed oo ku magac dheer Xamse Afyare. Ikraan soo dhaw walaal soo dhaw runtii aad bay farxad aad ay noo tahay maanta Ikraan inay all the way from the UK 22 hours nearly ay soo duushay si ay nagala qayb qaadato xafladda 18 May magaranaysa aan qaabina danahay jaaliyadii Australia iyo Somaliland mar aska runtii waxay noo tahay sharaf iyo cisay noo tahay inay magaranaysa nagala soo qayb qaadatay xafladdan fanaanadeena weyn Ikraan. waxaan leenahay walaal ku soo dhawow jaaliyadaadii iyo magaranaysa iyo magaalada Melbourne. waxaanu rajaynaynaa insha Allah xaflad aad u qurux badan noo dhacdo oo magaranaysa dhammaan dadka afka Soomaaliya ku hadlo dhan iyo ka soo qayb gali doonaan insha Allah. horta waxaan salaamayaa Baafo iyo Baafo Media. waxaan soo dhaweynayaa inaabsiday marna ina taabto ahay Ikraan Caraale oo ka soo duushay London. waxay noo timid xafladii 18 May oo 24 bisha Melbourne ka dhacaysa. waxaan la inaabtay soo dhawow gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawow ma baantay. marka waxaan u sii gudbinayaa ambassadorkii Somaliland u fadhiyo Australia ambassador Xirsi. anoo yahay magacaygu Xirsi Aadan Cali. caawa halka waxaanu taaganahay inaan soo dhaweyno walaasheen Ikraan Caraale. Ikraan oo ah dadka jecel Somaliland kana mid ah fanaaniinta Somaliland ay leedahay. fursaddan aan ka faa'iideysanay waxaan doonayaa mahadnaqo jaaliyadda Somaliland ee dalka Australia gudoomiyaheedu daadihinayo Xamse Afyare iyo gudoomiyaha xigeenka Xamse Class oo xafladan aad u qurux badan inoo soo qorsheeyay Ikraan inoo soo casuumay iyadoo sidoo kale committee-ga kamid ah aska oo arintan iyo xafladan aad uga soo shaqeeyay. waxaan jeclahay oo kale inaan fursadda ka faa'iideysto oo madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha ku-xigeenkiisa aan halka uga hambalyeeyo ummadda Somaliland daafaha dunida kala joogta aan ku leedahay happy 18 May. Ikraan dalkaagii dadkaagii bad u timi welcome to Australia gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa. waxaan aad ugu faraxsanahay caawa oo aad noogu qiimo badan oo habeen qaali ah inaan Ikraan ku soo dhaweyno magaalada Melbourne. waxaan ku leenahay soo dhaw walaal aad baan kugu faraxsanahay dhammaan reer Melbourne waxaan leenahay nagala soo qayb gala xafladda kulli aroos laguma raago safar dheer bay soo gashay way daalan tahay waan soo xidhaynaa waxaan leenahay walaal ku soo dhaw dadku jecel iyo dadkaagii. aad baan idin salaamayaa dhammaan inta haddana la joogtay iyo intana daawan doontaba akhyaarta ku xidhan Ibraahim Baafana si gaar ah u salaameynaa. halkani waa Melbourne waxaan u taaganahay kuna soo dhaweynaynaa waa Ikraan Caraale. waxayna u timid oo inay show ku qabsato magaalada. waa markii koowaad fanaan ku soo dhaweeyay magaalada fanaan ku soo dhaweeyay waa shidanahay aad baan sugu hambalyeynaya. meeshan Melbourne bal sida Afrika ma dadku ay available iska hayeen qofka ku soo yara kaca maalinta waxa laga yaabaa in wax badan soo kala tuuray caruurtiisi waxa laga yaabaa in mid luka jabay oo adiga ku soo hawlaheedu meesha ma yara soo dhaw baan ku leenahay walaal qaali. waa salaamatiin Baafo ku salaamay reer Somaliland kulli waa salaamay fanaanadeen Ikraan Caraale halka ka salaamaya. Ikraan caawa farxad bay tahay meeshaan isku aragno dreamkeyga weey 20 sano ka hor aan jeclaanay imaato caawa noqotay dreamkeyga maanta imaato. Ikraan abaayo soo dhawow waa ku joognaa gacmo furan ku soo dhaweynaa jaalid Somaliland waxaan leenahay hambaliyo basal gurwana soo dhawow habre. welcome to Melbourne. dadkii oo ku wada jecel jaaliyadii reer abtiga iyo reerka ma sha Allah waa buuxnaa wala buuxaa afarta koonaba xagga eeg hablihi wax kasta soo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. horta aad baan idin salaamayaa marka koobaad. marka labaad aad baad mahadsantiin sida quruxda badan leh ee waqtigiina igu soo hurteen dibaddana igu soo baxdeen airportkana igu taagnaydeen waqtiyada badan.
mar labaad waxaan leeyahay dhammaan jaaliyadda Somaliland meel kasta ay daafaha dunideeda ka joogta happy 18 May gaar ahaan reer Melbourne waxaan leeyahay happy 18 May waxaan aad u salaamayaa dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Melbourne joogta waxaan leeyahay qalbi furan soo dhaweyn furan waad mahadsantihiin sida quruxda badan aad ii soo dhaweyseen anu maadaama intaas soo saacadood soo socday reer Melbourne waxaan leeyahay waan jeclaanaa nadiidi imaado laakiin nasiibka waxa uu yeeshay inaan Somaliland kala qayb galo أنا Somaliland كلا قريب قلبنا هذا يدي كان يدي لد بلدي دونا إن شاء الله وحنا happy 18 May يا Somalia ومذا. Hey guys, I'm Nadira. I just want to welcome Ikran to Melbourne and happy 18 May to all the Somaliland people. إذا دول دائيو عليو سيدا دول دائيو دي بحرتي باندا حقوقو فرحي عليو ولقا هديعي عليو هديعي وحلي Somaliland شير أو شوق أنا هو أساسها Somaliland قري Somaliland لقصو أساسي بكايمد مركز لبي لبعتك ساعات إن صوص سعودي وحيلتها 5 دقيقة صوص سعودي. إكران عرالة وحي كقيب جلسة مناسبة 18 ماي أي قرشيين جالية الصومال كل دقن قبل كان فيكتوريا جارهان مقالة ملبون يدعو دونتا أفر لبعتك بيشن ماي. وأنا مركي وجوه رئيسي فنانة إكران عرالة أي سوق جرتو دلكن أستراليا. هذا ضبع سنتاي إبراهيم عمر بافي ورك الصومال تي في مقالة ملبون دلك أستراليا.